waxa ay xaflad heer sare ah loo soo gaasimay loona maamulay xafladan oo ka dhacday deegaanka guduudiye ee magaalada Mandheera taa oo lagu caleema saarayay gudoomiyaasha cusub ee beesha Shabeelle ee ka tirsan Kona Tribe. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo u diin haween waxgarad iyo qaybo kala duwan bulshada kuwaas oo door muhiim ah ka qaatay habsami socodka xafladani. beesha Shabeelle oo ka kooban 6 beelood ayaa mid loo soo xulay idoo odayaasha dhaqanka hormuud ka hayeen. waxaa la rabaa muwaafaqada reer Shabeelle inay ka shaqeeyaan geedi socodka soo xulista xubnaha hoggaanka. ugu dambeyn waxaa la doortay 6 xubnood oo matalaya beelaha kala duwan kuwaas oo si wadajir ah uga shaqeyn doonaan hoggaaminta iyo horumarinta beesha. gudoomiyaasha la caleema saaray waxa hoggaamin doona Faarax Diiriye si loo mideeyo bulshada lana xoojiyo wadajirka iyo iskaashiga bulshada. inta ay socotay xafladda odayaasha culimada ayaa jeediyay khudbad xambaarsan dardaaran iyo talooyin wax ku ool ah iyagoo ku booriyay hoggaanka cusub inay si hufan u gutaan waajibaadkooda isla markaana diiradda saaraan nabadda xalinta khilaafaadka iyo horumarinta beesha. sidoo kale haweenka iyo dhalinyarada ayaa muujiyay taageero xooggan u hayaan hogaamiyaasha cusub. ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhamaatay jawi farxad iyo safgarad iyadoo dhammaan ka qaybgalayaasha ay muujiyeen rajo wanaagsan ee ku aadan mustaqbalka beesha Shabeelle iyo hogaamiyaasha cusub. waxaan rabaa midnimada in la muujiyo Shabeelle aan meesha ka soo jeedno. talmaad waxaan kurida la goosto kurida macnaheedu maxaa waay dhulka inay deegaan tahay kurida aad tiraa waa haysan ninka shabaqo ka qaadana meel kala geeyna waa ceeb waa isbaabis shaqaad rabtaa bari dawlad soo gashay maxaad ku xisaabtan kurida waa gaartay maxaad ku xisaabtan shaqaar waa shaqada inta keeli shaqada waxaa la rabaa kurida qofka kurida soo doorti anaga xabka mid haddaan meesha aan ka soo jeedno waxaan noqonaa qabiil noqonayna qabiil waa laga dhigaa inta badan ah waxaan qabiilki inan aan muujin waan iswadaan aan ku naan meeshan ilaa aan kiyar kiban aan saas hoggaanka aan u qaban. waxaa la rabaa muwaafaqada reer Shabeelle inay ka shaqeeyaan idinkana aad maqashaan oo qadarisaan hebel aniga maxaa sii sheegaa meesha kuma jirto marka tafadal ana warkaydu waa gaaban yahay kuraada aan goosanna qadiyad aan la imaana shilin waxaas noo taraa malaha dhulka waa u jeedin isbedela ka dhacay 6 qof inta fadhiisad arkaysiin waa 6 yuudka cidda matali lahayd ani meel dheeraan jiraa dadka ila shaqayn lahay oo maanta wax ila qaban lahay kuwaan la'aantood ani meel aan u dhaqaaqa ma laha nin kastaba ani ma soo bixin ogaasiinta soo bixiyeen ani waa la kabiya calaamad saarkan hagaajinaya jeemanka guudayay inaan isla shaqeyna aan dadkan aan la shaqeey ogaasiintan aan la shaqeyna ayuu 6 anoo 7 anoo 7 ku ayuu suldaankooda 7 ku 14 inaan isla shaqeyna wax badan aan isla qabanna tan aan rabnatay way taas way wax kala xumaan kala u socono malaha wax kala maanta hagaajin ka rabna malaha cidda dhibka nagu dhacay waa ogsantiin jabka aan soo marno ogsantiin wax muhiim ah meeshaan aan rabna maxaa aan u maadnay xaduudkeen inaan xirano waxyaalo badan jira tuuliyaal shalay la asaasi 30 sano ay dhisanta gudihiisa ma light hata ma qabna soonkan darad meesha misaadkan waan ku tukun wayne dad waa hayna oo lacag hay ma noo soo saari hanata soola MP area maalinkaas imaaday qalaaliyo waa u sheegnay maxaan guduudi bulangufu lighting waa mariha u gali waaye guduudi lighting noo soo xaray ilaa hadda waa ka sugayna waxaan ka hayna malaha tuulada shalay la asaasin waad saa lightingeeda waa lisi tanna 30 sano waa bahdilin waxaas wax noo keenay maxaa waay cadaalad darro waay maalin kasta waxaan qaadana ku shilin 500 aan qaadana waxba nooma taraysa dad hubiga jinkiisa deganaan anoo 500 kun shilin la sii waxba nooma taraysa maxarna waxaan la imaana aan dhahna waxaan dhalada dadkaan la soo baxnay shaqo abuur hana la sii motooro hana la sii beereyna tabcana muhiimada taabay taas way meelaha kala ka fiiri dadka mootaa loo qaybiya gaariyaal dada loo gadiyaa 12 gaari mootiyaal la gadiyaa anagu maxaa noo yeel cadaalad darradu way mid muhiimkaan rabna maxaa way inaan isku xirnaana 6 jeeman waxaan u hagaajistay maxaa way inaan isku xirnaana
magaalada dadka jooga waa isku xiran sagaalka kale inta lixdan waa inta ani aan ka dhashi lixdan ani aan ka dhashi magaca maanta aan ku joogo koona tareeb magacani kaydi maaha magac kaydi maaha magac shabeellaan ku jooga magacaan ku jooga kee waay shabeelle waay marka maxaan rabnaa inaan isla shaqayna lixdan jilib jeemanayaashaan aan soo saarnay inaan isla shaqayna aan wax isla wadna hadalkan markaan dhammayna maxaan rabaa calaamasaarkan juhdigan waxaan u gelinaa maanta aan u dhammaynahayna inaan dadkaan ay soo baxaan la ogaada mii magaalo ninka meel kasta jira inay ogaadaan lixda jilib jeemanayaashooda waa kuwan inta cidda ani maanta jeeman guud intay intan amar aan ka qaadana waa kuwan kuwii kale iyo kale loo diraa keligay meel uma ordi kari ugaas kastaba cid kastaba ugaasa loo yeelay sooma sidii ugaasaha cidda loogu hagaajiyaa jeemanayaashaan loo hagaajiyey waxaan anuka soo hagaajina maaha ugaasiinta jiiftaha aan nagala shaqeeyeen marka waxaa waaye martida sharafta loo noo imaada odayaalka jiifafka dhalinyarada wixii haweenka wixii noo imaadeen aad mahadsantihiin annaga waxaan rabnaa inaan wada jir aan wada soconno oon annaga un hadalkaayna meesha aas ahaada luuqadaayna meesha ay hayta dhalinyartaayna haweenkaayna kulli iska wada warqabno oon u soo barbarko ridoonan ka soo galno ridoonan ku wada baxno anigoo Samater Khaliif waxaan ka soo jeedaa beesha reer Boore maadaama maanta aan ahay chairmanka reer Boore dhalinyarta youthka alxamdulillah meesha maanta aan ku kulannay waa meel khayr badan waa meel ma aragtaa dhalinyartii dhan iskugu yimaadi odayaashii ugaasiinta dhammaan waxaan idin leenahay soo dhowaada waxaan rabnaa inaan midnimo aan samayno waxaan rabnaa inaan unity noqono organization inaan samayno aniga waxaan ahay chairmanka beesha cidda reer mahad magaciidana waxaa la dhahay Jimcaale Maxamuud Cabdi waa anigoo ah Shacbaan Aftiin Cabdille Shide Malable oo ka soo jeeda Malable family anigoo ah Cabdi Saalax waxaan meeshan u taagan maanta xubinta reer Dow chairman kan oo ah waxaan xilkan u qaaday ma ahan faajiiskayga ma qaadin waa xil xaq ilay ka imaado maanta walaalahay ay garteen balse de xilkaas Dow kale umahay inta muslimiin kulmay u joogto wanaha xilkaas saydi waxaan idinka bariya dhalinyarada meel joogtiin waxaanay tafarruq waa iska dhaafna midnimo ahan moojin communication naga dhaxee meesha forum ala fur doona forumkaas waa la isku wareysana kana Boore kana Dow kana jildi ma jirto waxa meesha dhismahaad waa group hal group lebis groupkaas iyada wax loo furay ma ahan inuu kalbaxan nimiyo kii aan telefoon weyn haysanin kola loo soo gali doona wala soo wici doona kii haysan telefoon numberkiisi waxa soo dhigi doona chairmantiisi lixda chairman aan cidda ay soo bixisay waa ila qaateen Soomaha ugaasiinta lixda qof ay soo bixisay macallin sultaanka waa ila qaateen Soomaha